أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمسقا. qofku haddaanu qofka doonaynin way adagtahay in lagu qasbaa. waxaa roon gurigu marka ugu horraysa inaan laba qof oo laysu hadoodilay aanu noqon ama si fudud isku soo galay laba qof oo isbartay oo isgaranaya oo raaliska ah inay nolosha wada qaybsadaan. waayo waa noloshaadii waxaanaad doonaysaa inaad qofka la qaybsataa, waa noloshaadii oo dhan. walidalik buu axadu saxaaba baa dabcay inuu gabadh guursaday, nebigu wuxuu ku yidhi war ma iska eegta. xataa culammada qabta in wejiga iyo gacmahu ay gabadha waajib ku tahay in la qariyo marka khudbada tee nooca kana waxay qabaan inay faydo in la iska eego, waana iyadoo maradu ku daban tahay waa in la iska eegaa. waxaa laga yaabaa dadku iminka markay wejiga iyo intayn isku dadaan inay isidhahdaan sharcigu ma ogolo, miyaadu waad faydaysaa, waa lagu arkaya, waa masale diinta ku bannaan, ma aha masale muran ku jiro. sida daraaddeed yani dadku caadadii iyabaa la isku daray kollaya waxay soomaalidu waxyaaba badan ay ka xishootaa jira, laakiin diinta ku bannaan. diinta way ku bannaantay gabadhuna haddii uu wiilu soo khudbaya waa inay wejiga faydaan, laakiin maxramku waa inu meesha joogaa. waxaynu leenahay wuxuu nebigu ku yidhi war ma iska eegtay gabadha, waayo inaad iska eegtaa waxay keensanaysaa buu nebigu yidhi inaa maxabadiin iyo kalgacalkiinu daa'im noqdo dee a isqabtaan muddo badan. marka waxaa fiican inuu marka hore si guriga aan marka dambe mashkiladii uga iman, in marka hore ninka iyo gabadhu mid waliba ka kale iska eego oo wixii lagu dooranayo uu ku doorto. qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya, nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa wuxuu inoogu tilmaamaya gabadha in sifaad lagu guursado. mid baa qurux loo guursadaa buu yidhi, mid baa xoolo loo guursadaa, mid baa reer fiican ay ka dhalatay loo guursadaa, mid baa diin lagu guursadaa. dabeetana nebigu wuxuu inoogu yidhi fadfar bidaati diini taribat yadaak, ta diinta u saaxiibkaa ku guursa buu nebigu. yacni shayga koowaad kuwa kale laftooda waa wax la qadarin karo, laakiin shayga isagu hadduu xumaado aanay kuwa kale qiimo yeelanaynin. waa laga yaabaa qofku inuu diin iyo qurux iyo waxan oo dhan ba isku wada qadariyo, laakiin shayga hadduu isagu kharrimo waxa kale aanay qiimo samaynaynin waa qofka hadduu diin laga waayo. inanta maxaa la yidhi markaa, ma hadduu gadh la baxo oo surwaalka gaabsado iska guurso hadhowna ha kufura ama ha ku sooriya ama isdishe? maya, iyana arrimo kalea loo tilmaamay. wuxuu nebigu tilmaamayaa odaygii hadduu idiin yimaado maxay, canman tardawna diinah wa khuluqa, laba shay baa la sheegay. diin, inuu qofku diin leeyahy. waa laga yaabaa dadka qaar iyagoo diintii garanayo iska fiicnay dad dabeecad adag oo lala dhaqmi karaya aanay ahayn. markaasaa la yidhi iyo wa khuluqa, wadaadku weligiiba gadh iyo surwaal gaaban ha sitee eeg baa la yidhi diintiisa iyo maxay iyo akhlaaqdiisaba. inantu markay labadaa iska eegta iyana waa kafaa'adii. islaamku waxa kale oo dhan ee innagu aynu sheegna ama culammada badh aaraadooda laga sheegay waxba kama jirayaan. kafaa'a iyo qabiil iyo waxyaabaha kale dadku ay tiriyaan, waxa tirsiista le waa labadanu. hadduu diintu xun tahay maxaa la yidhi laa yankaxu zaani, ilahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya zaaniyadda inaanu guursanin maxay zaani mooyaane fii suurati nuur. diintu waa sharti. aaniyan akhlaaq, labadaasaa ah waxa uu islaamku yaqaano. waxaan oo dhan aan u sheegayaa ilaa anigu talaaq baan ka warramayay. waxaan u sheegayaa, waxaan leeyahay waxyaabaha conflictka abuura inta aan la odhan conflict baa jira ha la xallilo, waa in marka hore laga qaataa precaution waxyaabihii lagaga hortegi lahaa. mudan inaad cadhadaada ka qariso, qofkan ay isugu dhowdiineen nolosheedii oo dhan adiga gacanta lagu geeyo lagu yidhi maamul. waxaa layna leeyahay waqulu linnaasi xusna, war dadka wanaag ku dhaha. yaa mudan inaad wanaag ku tidhaahdo hadal qabo kula hadasho haweentaada. waxaan leenahay qiwaamadu yay noqonin rag iyo haweenkaba kuwa alla yidhi waylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruun buu ilahay yidhi. qolada miisaanka fudaydisa baa ilahay yidhi cadaab baa u sugan. waayo dadka markay iyagu xaqooda ka qaadanayaanna waxay jecel yihiin in xaqooda o dhan loo oofiyo. marka iyaga la rabo inay xuquuqda bixiyaanna waa ka meermeerayaanoo ma rabaan inay wada oofiyaan. kaa ha noqonin markaa. waajibaad baa isku leediin iyo xuquuq, qof waliba ha isku daya ka kale waajibaadkiisa inuu u sameeyo. walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya istawsuu binnisaa'i khayra, war dumarka sama u sameeya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ama samaan idinku dardaarmaya dumarka inaa u yeeshaan.
والنبي tilmaamaya ma akrama النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. dictatorship maaha meeshu. dumarka ma sharfo ma karaameeya buu nebigu leeyahay mid karaamaysan mooyaane. nin sharaf leh oo gob ah ayuunbaa dumarka gobonimo kula dhaqma. dumarka mar rifo oo ma daba guuro buu nebigu leeyahay kuma mushkilad kuma hayo ilaa la'iim mooyaane mid xun mooyaane. waa khabiis buu nebigu tilmaamaya kanuun haweenka la tirsanaya had iyo goor daba socda. waxaynu leenahay qur-aanku wuxuu ina barayba miisaan la yidhaahdo faman faqulat mawaaziinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun. jannadii dhammayd ee ilaahay ee wax la arko tii u qiimo badnayda maxaa la yidhi? waxaa la yidhi faman faqulat mawaaziinuhu yacni laabudda min sayi'aat. xumo way dhacayaan ila weylo, qof kasta xumo waa ka dhacaya. laakiin waxaa alla leeyahay ninka wanaagiisu uu ka bato xumihiisa ahlu jannuhu ka mid yahay. gabadha markaa haddii wanaageedu ka badaya xumaheeda waa in la dhaqaa. ninka haddii wanaagiisu ka badaya xumihiisa gabadha waa inay dhaqdaa. reerkii waa inuu noqdaa reer compromise ku jiro dantooda in badan raadacaynaya.